kulanti wacan daawadayaal dhammaantiin meel kasta oo joogtaan u soo dhawaada janalka wararka ee Samakaab TV fadlan haddii aad janalkeena ku cusub tahay subscribe inoo saar taariikhdu waxay ku beegan tahay 9 bisha 6 sanadka 2019 qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxda galmudug oo beeniyay inuu wax khilaaf ah u dhaxeeyo dhexdooda qodobo waaweyn oo ka soo baxay shir looga hadlayay caasimadda magaalada Muqdisho oo ka dhacay Muqdisho Kenya oo sheegtay inay qaraxyo fara badan oo la doonayo in lagu weeraro Nairobi ee gacanta ku dhigtay saamiga ismaamulka Soomaalida Itoobiya uu ku yeelanayo shidaalka laga helay gobolkooda oo la shaaciyay Yuusuf Dabageed oo dalab degdeg ah u soo dirsaday dawladda Soomaaliya diidayna in xilka laga qaado iyo taliye ciidan oo lagu dilay dalka Yemen gaar ahaan magaalada Xudayda soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan maamulka galmudug madaxda ugu sareysa ayaa waxa ay beeniyeen inuu wax khilaaf soo kala dhex galay maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray warar dhawaanahan la isla dhex marayay kuwaas oo sheegaya in khilaaf uu soo kala dhex galay hoggaanka ugu sareeya Ahlusunna wal Jameeca iyo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf qoraal lagu daabacay barta Facebook ee madaxweyne Xaaf ayaa lagu yiri waxba kama jiraan wararka lagu baahiyay baraha bulshada ee la xiriira inuu khilaaf soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa galmudug waxaana jiray warar ay baahiyeen warbaahinta qaarkood kuwaas oo lagu sheegay in hoggaanka Ahlusunna wal Jameeca iyo madaxweyne Xaaf uu soo kala dhex galay khilaaf xooggan taas oo ku aadan doorashada maamulkaasi inay dhaceyso sanadka 2020 halka madaxda dawladda federaalka ay doonayso in doorashada maamulkaas la qabto bisha July ee soo aadan dhanka kalena waxaa laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug diyaar garow ku aadan shirka toddobaadka soo aadan magaalada Dhuusamareeb ee ku yeelan doonaan qaar kamid ah madaxda dawlad goboleedyada kuwaas oo dhawaan isugu yeeray madaxweyne Xaaf kulan looga arisan iyo qabanqaabada shirkaas ayaa waxaa xalay magaalada Dhuusamareeb uu ku dhex maray madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo gudoomiyaha guud ee Ahlusunna wal Jameeca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan waxaana la sheegay in kulankaas uu ku soo dhamaaday isafgarad waxaa jira warar sheegay in madaxweyne Xaaf isniinta oo biri ah uu anbabixi doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas uu kulamo hordhac kula soo yeelan doono qaar kamid ah madaxda dawlad goboleedyada kadibna kulankii uu isugu yeeray madaxweyne Xaaf toddobaadka soo aadan ay isugu tagi doonaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug qaar kamid ah madaxda dawlad goboleedyada ay kamid yihiin Jubbaland Puntland iyo galmudug ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya aad u dhaliilsan iyagoona ay sheegay in waxyaabo badan ay dawladda Soomaaliya kaga soo horjeedaan dawladda Kenya waxa ay sheegtay inay qabatay qaraxyo badan oo la doonayo in lagu weeraro Nairobi booliiska Kenya ee jooga magaalada lagu magacaabo Bomet ayaa sheegay inay qabteen xaddi aad u fara badan oo qaraxyo ah iyo sidoo kale fiilooyin lagu xirxiri lahaa kuwaas oo ay aaminsan yihiin in lagu weerari lahaa magaalada Nairobi wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya ayaa soo xigtay sarkaal booliiska ah waxaana uu sheegay inay qabteen 1750 kilogram oo ah nooca miinooyinka laga sameeyo iyo sidoo kale cotton fiilooyin ah oo walxaha qarxa loogu talagalay in lagu xirxiro taas oo booliiska ay ku qabteen magaalada lagu magacaabo Bomet sida uu sheegay taliyaha booliiska ee magaaladaasi qaraxyada lagu qabtay gaari xamuul ah ayaa qaraxyadaasi siday iyadoona ciidanka ay ku joojiyeen bar kontarool oo duleedka magaalada Bomet ah booliiska ayaa waxaa xireen Joseph Wang oo ah 37 jir isla markaana ahaa darawalkii gaariga haas siday waxyaabaha qarxa isniinta oo biri ah ayaana la soo taagi doonaa maxkamad gaariga ayaa waxaa iska lahaa shirkadda ka shaqeysa hagaajinta kiimikooyinka hase ahaatee dambi baariyaasha booliiska waxay aaminsan yihiin in qalabkaas loogu talagalay in qaraxyo laga sameeyo kadibna Nairobi lagu weeraro darawalka waday gaariga xamuulka ah ayaa kaligiisa gaariga saarnaa waxaana booliisku isugu dhiibay si nabadgelyo ah iyadoona halkaas ay ciidamada booliiska ka soo xireen xabsigana ay dhigeen afayeenka booliiska ee dalka Kenya Charles Owanga ayaa sheegay in ciidankoodu ay howlgallo isxigay ku soo qabteen rag la aaminsan yahay in Al-Shabaab ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa Kenya ku qaaday weeraro fara badan oo dhiig badan ay ku daadiyeen waxaana ugu dambeeyay weerarkii magaalada Nairobi ka dhacay 15 July kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux oo shacab ah dad kale oo fara badanna uu dhaawac ka soo gaaray saamiga ismaamulka Soomaalida uu ku yeelanayo shidaalka laga helay dhulkoodana waa la cadeeyay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Itoobiya ayaa sheegay inuu ansixiyay saamiga ismaamulka Soomaalida uu ku yeelanayo shidaalka laga helay dhulkooda
xubnaha aqalka sare ee federaalka Itoobiya ayaa meel mariyay in 50% dhaqaalaha ka soo xarooda shidaalkaasi laga helay gobolka Soomaalida ay yeelan doonaan ismaamulka Soomaalida Itoobiya dadka degan. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya marar badan uu ka hadlay hadallo isdhaafsanaa kuwaas oo sheegaya in Soomaalida 5% ay ku yeelan doonaan shidaalka dhulkooda laga helay. waxaana hadda muuqata in arrintaasi gebi ahaanba ay meesha ka baxayso maadaama 50% loo ansixiyay inay heli doonaan shacabka Soomaalida dakhliga ka soo xarooda shidaalkaas laga helay gobolkooda. laakiin Abiy Ahmed ayaa arrintaasi bidhaamiyay waxaana uu sheegay in 5% ay leeyihiin dadka degan deegaanada ceelasha shidaalka laga helay marka laga yimaado in 50% ay yeelan doonaan dadka Soomaalida dhulka shidaalkaasi laga helay. aqalka sare ma uusan shaacinin sida laga yeelayo inta kale ee shidaalkaasi iyo siyaabaha kala duwan ee loo maareynayo dhulka Soomaalida oo sanado badan shidaalka laga baariyay ayaa waxa ugu dambeyntii laga helay shidaal waxaana ku guuleystay shirkado laga leeyahay dalka China waxaana haatan dhiman oo kaliya in shidaalkaasi banaanka loo iibgeeyo. go'aano waaweyn waxa ay ka soo baxeen shir amniga looga hadlayay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. shir looga hadlayay ammaanka caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana kulankaasi shir gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yusuf. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliiska, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir iyo saraakiil kale waxaana la iska wareystay xaaladda ammaanka ee caasimadda. waxyaabaha kulankaasi looga hadlay oo diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah sugidda amniga, isdhexgalka bulshada, diriseynta iyo horumarka caasimadda waxaana ka soo baxay talooyin aad muhiim u ah. go'aanada ka soo baxay kulankaasi amniga caasimadda looga hadlayay waxaa ka mid ah in la sii xoojiyo adkeynta ammaanka caasimadda sidoo kalena waxaa la isla gartay in la sii kordhiyo howlgallada ciidamada dowladda ay ka sameynayaan xaafadaha magaalada Muqdisho si loo soo qabto kooxaha nabadiidka ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaa kula dardaarmay saraakiisha ammaanka inay dardar geliyaan howlgalladooda ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ah isla markaana loo baahan yahay in gacan adag lagu soo qabto dadka falalka amni darrada ka sameeya magaalada. gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu gargaar degdeg ah u dirsaday dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo ka codsaday in laga soo gaaro. gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay inuusan gebi ahaanba wareejin doonin xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan ilaa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo faragelinayso khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweyne Waare. madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xilka qaaday Dabageed waxaana uu magacaabay gudoomiye cusub. Yuusuf Dabageed oo maanta shir jiraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in magacaabistiisa ay ku timid wadatashi dowladda dhexe iyo Hirshabelle ah xilkiisana aan laga qaadi karin ilaa iyo dowladda Soomaaliya ay ka talinayso inuu xilkaasi wareejiyana uu booska sii joogi doono. ciidamo ka amar qaatay Yuusuf Dabageed ayaa saaki la wareego qaybo ka mid ah goobaha canshuuraha ee gobolka Hiiraan iyadoona gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi loo magacaabay uu Beledweyne ku sugan yahay. Yuusuf ayaa madaxweynaha Hirshabelle ku eedeeyay inuu kala qaybiyay isla markaana uu jufo kala saaray dadka degan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo ka soo jeedaan isaga iyo gudoomiyaha cusub. shir jaraa'id uu warbaahinta ugu qabtay magaalada Beledweyne ayuu ku sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle uu amray in ciidamada militariga ah iyo kuwa booliiska iyo nabad sugidda ee magaalada Beledweyne isaga soo xiraan balse aanan la xiri karin. Waare iyo Cali Guudlaawe xiritaankooda ima qabanayo laakiin waxa inoo yaala sharcigaas ayaana ku dhaqmeynaa waxa ay dhiirigelinayaan waa sharciga ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo diiday in xilka laga qaado. madaxweynaha Hirshabelle iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale ee maamulkaas ayuu sheegay inay dhaqaalo u soo doontaan magaalada Beledweyne isla markaana aysan shaacinaynin waxyaabaha ay u qabanayaan gobolka Hiiraan. hadalka gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa u muuqda inuu yahay mid uu gebi ahaanba ku diidan yahay xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxaana uu dalbaday in khilaafkiisa ay soo farageliso dowladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo ay jirto in xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay arrintaasi ku baxeen inkastoo waxyaabaha ay ka qabteen iska yar tahay. dowladda Ingiriiskana dalkeeda waxa ay ka soo tarxiilaysaa muwaadin Soomaaliyeed oo lagu helay fal kufsi ah inuu dalkaasi ka geystay. dowladda Ingiriiska ayaa doonaysa inay dalkeeda ka soo musaafirto muwaadin Soomaaliyeed oo lagu helay inuu fal dambiyeed kufsi ah dalkaasi ka geystay. sanadkii la soo dhaafay ayay dowladda Britain isku dayday in ninkaasi Soomaaliyeed oo lagu magacaabay Yacquub Axmed oo 30 jir ah sanadkii la soo dhaafay ayay dowladda Britain isku dayday in ninkaasi oo lagu magacaabay Yuusuf Axmed oo 30 sano jir ah dalka dib ugu soo celiso hase ahaatee rakaabkii diyaaradii waday ayaa diiday waxaana ay codsadeen in ninkaasi la musaafirin. damiin uu muran ka dhashay ayaana markii dambe lagu sii daayay bishii Maaj ee sanadkan
balse dib ayaa loo soo xiray waxaana hadda socdo qorshe ninkaasi lagu musaafirinayo oo dib loogu soo celinayo dalka Soomaaliya sida lagu qoray wargeyska Daily Mail. wargeyska ayaa waxa uu sheegay in Yacquub Axmed haatan lagu hayo 2 xarumood oo ku kala yaala gudaha magaalada Britain gaar ahaan garoonka lagu magacaabo Gothenburg taas oo la doonayo marka ay suurto gasho in si dhaqsi ah lagu soo qaado. sanadkii 2007 ayaa Yacquub Axmed iyo 3 kale oo rag ah waxaa lagu helay inuu kufsadeen gabar 16 sano jir ah waxaana lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah. sanado ka hor ayuu dhameystay xukunkiisa. hadda ayayna dowladda Ingiriiska waxa ay mar kale doonaysaa inay Yacquub ku soo celiso Soomaaliya oo asal ahaan ka soo jeedo gobolada dhexe. haddii eegnana dil ayaa ka dhacay degmada lagu magacaabo Balambal halkaasna waxaa ka taagan xiisad u dhaxaysa beelo wada dega. dilka ayaa asalka waxa uu ku hayaa ana qabiil waxaana uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada Balambal ee gobolka Galgaduud. dilka ayaa waxaa loo geystay nin ka mid ahaa dadka xoolo dhaqatada ah kaas oo ku noolaa deegaan hoostaga magaalada Balambal waxaana saaki halkaasi ka taagnaa xiisad colaadeed oo u dhaxaysa beelaha halkaasi wada dega. qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka hoostaga magaalada Balambal ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay cabsi xoog leh qabaan halkaasna ay ka cabsi qabaan inay isku farasaaraan oo dagaal uu ku dhex maro maleeshiya hubeysan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu magacaabay guddi cusub oo ka shaqeyn doona qabanqaabada maalmaha xurriyadda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya qabanqaabada munaasabadda xuska toddobaadka xurriyadda ee Soomaaliya. guddigan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka shaqeyn doona qabanqaabada sanad guurada 19aad ee ka soo wareegtay xurriyadda, midnimada iyo dhalashada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee toddobaadyada soo socda nagu soo aadan. Maxamed Cabdi Xayir wasiirka warfaafinta ee xukuumadda ayaana gudoomiye looga dhigay. waxaa kale oo kamid ah Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda, Xasan Cali Maxamed wasiirka gaashaandhigga, Maxamed Abuukar Islow wasiirka amniga, Khadiija Maxamed Diiri wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, Deeqa Yaasiin Yuusuf wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo sidoo kale Sadiiq Xirsi Warfaa oo ah wasiirka shaqada iyo shaqaalaha. guddigan ayaa waxa ay qaban doonaan inay soo qaban qaabiyaan munaasabadda xurriyadda 26 Juun iyo 1 Luulyo. sidoo kale waxa ay soo qaban doonaan shaqooyin ay kamid yihiin inay guud ahaan soo tirakoobaan dhaqaalaha ku baxa maalmaha xurriyadda iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan sugitaanka ammaanka goobaha ay ka dhacayaan munaasabadaha waaweyn. akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah taliye ciidan ayaa waxaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Xudayda. taliyihii guutada 3aad ee dalka Yemen Cali Axmed iyo 4 ka mid ah ilaaladiisa qaaska ah ayaa lagu dilay qarax lala beegsaday gaari oo la socdeen oo mariyay degmada lagu magacaabo Qooqa ee duleedka magaalada Xudayda. saraakiil ka tirsan militariga oo la hadlay wakaaladda wararka ee China ayaa waxa ay sheegeen in taliyaha gaarigiisa uu qarax qabsaday sidaasna uu ku geeriyooday isagoo halkaasi ku sameynaya kormeero goobaha ay ciidamadu fariisinka ku leeyihiin kuwaas oo ka soo horjeeda Xuutiyiinta Yemen dagaalkana kula jira. dhinaca kale maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa sheegay inay madaafiic culus ku garaaceen fariisimaha ciidamada Yemen ay ku leeyihiin dekedda magaalada Xudayda iyo goobo kale. guud ahaan saaxiibayaal warkeena intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna. fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe inoo saar gambalaalkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinaduna ay soo gaaraan.